والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن دكتور حسن شيخ محمود، رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد بره، guddoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, taliyayaasha ciidamada qalabka sida, guddoomiyaha gobolka Banaadir, dhammaan mas'uuliyiinta marti sharafta iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee inagala socota daafaha adduunka, iga guddooma salaan midnimo iyo kalgacal xambaarsan. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. waxaan marka hore u mahadcelinayaa oo aan ku bogaadinayaa dadaalkoodii guddiga qabanqaabada munaasabadaha maamuuska usbuuca xorriyadda oo si habsami iyo maamuus ku dheehan yahay u soo agaasimay munaasabadan qiimaha badan leh. mudane madaxweyne, dhammaan madaxda iyo marti sharafta kala duwan, caawa waxaan filayaa in aan ka duwanahay mas-uuliyiinta sanadkan iyo sanado fara badan oo tegey hadal ka jeediyey munaasabadan xuska maalinta xorriyadda gobollada waqooyi ee 26 Juun. waxaa cawo iyo nasiib ah in aan ka imi anugu gobollada waqooyi, ahay mas-uul xukuma gobolladii waqooyi qaybo ka mid ah, midnimada iyo wadajirkuna uu yahay mabda'ayga, isla markaana ugu mudan in aan ka hadlo waxa midnimadu ugu fadhido qaranka Soomaaliyeed ka reer waqooyi ahaan iyo ka shakhsi ahaan hogaamiyaha SSC Khaatumo. waxaan dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeeda ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo guud ahaan xukuumadda federaalka ee dan qaran, waxaan uga mahadnaqayaa mar kale in markii ugu horeysay taariikhda maamulka SSC Khaatumo oo ah qayb ka mid ah gobollada waqooyi lagu taageeray go'aankii shacabkaasi ay gaadheen iyo mabda'ooda midnimo doonka ah, isla markaana la siiyey aqoonsi maamulku meel gaar ah, taas oo suurto gelisay in 30 sano kadib adeegyada dawliga ah laga bilaabo deegaanada maamulka SSC Khaatumo oo ugu dambeeyey adeegyadaasoo ugu dambeeyey uguna mudnaa in ay ardayda deegaanadaasi u fadhiistaan 30 sano kadib imtixaan dowladda federaalka ahi ay qaranka Soomaaliyeed ugu tala gashay u dejisay. mudanayaal iyo marwooyin, caawa waxa aynu xusaynaa oo xusuusanaynaa isla markaana u dabaaldegaynaa guul ay soo hooyeen awoowayaasheen oo ay u soo dhabar adeygeen aabbayaasheen, innagana laynaga doonayo in aan sii xejinno oo horumarino isla markaana ubadkeenna aynu u rarno geedi midnimo iyo wadajir ku salaysan. mudanayaal iyo marwooyin, taariikhda halgankii xorrimadoonka gobollada waqooyi iyo baadidoonkii midnimada Soomaaliyeed waxa aynu ka baran karnaa casharo, guubaabo iyo gobonnimo noo horsoodi karaya. waxaa mudan in aanu xusno taariikhda halgamadii xornimadoonka Soomaaliyeed sida taariikhda halgankii Imaam Axmed Guray, Sheekh Xasan Barsame iyo halgankii dheeraa ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan, halgankii ururkii dhalinyarada SYL, Xawataako iyo dhammaan hal abuuradii Soomaaliyeed ee halgankan kaga qayb qaatay af iyo adinba. mudanayaal iyo marwooyin, sanadkii dahabiga ahaa ee 1960 bishii Juun 26 markii dhulkii Ingiriisku u bixiyey British Somaliland ay ka xorowday xukunkii Ingiriiska, halka 1 Julaay isla sanadkaasna koonfurtii dalkeenna oo uu Talyaanigu u bixiyey Italian Somaliland ay xorowday lana midowday walaalahoodii waqooyiga Soomaaliyeed si farxad iyo raynrayni ku dheehan tahay. iyadoo oo markaa ay ummadda Soomaaliyeed
gebi ahaanba u riyaaqday midhihii ay goosteen halgankoodii dheeraa kadib. mudanayaal iyo marwooyin, dowladnimadii Soomaaliya markii ay burburtay dagaalkii sokeeye dalka uu ku baahay oo jamhuuriyaddii saddexaad baadigoobkeeda lagu guda jiray, waxaa shirar dib u heshiisiin ah lagu qabanayay dalka dibaddiisa. haldoorka iyo hoggaanka gobollada waqooyi waxaan qirayaa in aynu luminay fursad aynu dadka iyo dowladnimada Soomaaliyeed dib ugu dhisi karaynay, uguna qaabayn karaynay mustaqbalka jiilasha dambe ee Soomaaliyeed. waxaa xaqiiqo ah in gobollada waqooyi laftigoodu ku kala qaybsanaayeen jihaynta aayaha gobollada, ayna u qaybsanaayeen fikrad gooni goosada iyo fikrad midnimadoon ah. dhismaha jamhuuriyadda saddexaad, jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, waa nidaam dawli ah oo dadka u dhoweynaya dowladnimada, isla markaana fursad siinaya in gobollo kasta ismaamulaan, isla markaana hoos tagaan xubinna ka noqdaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. tani waa mid ku timid xallinta mashaakilaadkii laga tirsanayay dowladdii dhexe oo awooddu hal meel ku urursanayd. haddaba waxaa isweydiin mudan, xornimadani maxay inooga dhigan tahay aynu helay 26 Juun? maxay uga dhigan tahay muwaadinka Soomaaliyeed ee maanta jooga? xornimo ma waxaynu ula jeednaa in aynu hellay keliya calan iyo jamhuuriyad aynu inagu iska leenahay? xornimada ma waxaynu uga jeednaa in aynu aqbalno mar kale qorshihii iyo gumaystuhu inuu kala qaybinayay? mudanayaal iyo marwooyin, caawa 64 sano kadib xorriyadda iyo midnimada maxay uga dhigan tahay muwaadinka Soomaaliyeed ee jooga tusaale ahaan Laascaanood iyo Buuhoodle oo 33 sano kadib maanta u fadhiisanaya imtixaan qaran, isla markaana 8 bilood ay ka taagneed dhibaatooyin aan Soomaali hore uga dhicin? haddii aan si kale u dhigo, caawa haddii dowladda Soomaaliyeed ee aynu maanta hoos joognaa ay weerar ku ekayso gobollada waqooyi iyada oo damacsan inay ku khasabto inay midnimadii u soo laabtaan, waxaa waajib ku ah qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inuu ka dhiidhiyo, isla mar ahaantaana ka hortago. sidaas si la mida qof kasta oo Soomaaliyeed oo muwaadina waxaa la gudboon in doonista qaybo ka mida Soomaaliya aan la isku dayin in lagu muqooniyo khasab iyo qori caaradi. mudanayaal iyo marwooyin, Soomaali waxaa shalay iyo maanta iyo berriba dowladnimada loo dhan yahay iyo midnimo lagu waayayaa kala tag iyo madax bannaanin iyo kala tag iyo madax taag lagu heli maayo. annagu haddaanu nahay shacabka SSC Khaatumo, aanu nahay reer waqooyi, waxaan aaminsannahay midnimo aan cidna marti looga ahayn iyo dowladnimo macno leh oo wada gaadha dhammaan geyiga jamhuuriyadda Soomaaliyeed. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan doonayaa inaan hadalkayga soo koobo oo aan ku soo gebagabeeyo tuducyo uu tiriyey abwaankii Soomaaliyeed ee shahiidka ahaa abwaan Jaamac Keediya Cilmi. masaluugo midabkiyo sinjigiiyo magacoo Soomaali baan ahay, ummaddaan la simanahay. salka ugu shisheeye NFD ku siman tahay, saaca koonfureedoo saaciida taaliyo sintaa bari galbeed iyo sabarrada waqooyi. ummaddaa ku simanee saqiir iyo kabiirba leh, kala sooci maayo, way wada sokeeyo Soomaali baan ahay. sawdkaan aqaanaa Soomaali weeyo, sinjigayga dhalashadu Soomaali weeyo, samayskayga aadane Soomaali weeyi. ruuxaan salaamaa Soomaali weeyo, sad waxaan la quutaa Soomaali weeyo, saaxiib waxaan nahay Soomaali weeyo. gogashaan ku seexdaa Soomaali weeyo, cagta meeshan saaraa Soomaali weeyo, jidhka meesha lay saraa Soomaali weeyo, ma ogoli safaadka iyo kala soocidoodana. taariikhdiisa loonkii waxa ay sabaysaba 1900 sannadkii lixdamadii sohdimihii xidhnaan jiray markay kala sifoobeen, isu soo bixii iyo saacadday israaceen, isma odhan sansaakii sifir buu ku noqonayaa. waase shay xaqiiqo ah. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
أدو ما سنيا هجاميها قاتمو مدن علي مروين وحاصنا يا إن وقتها نلا دورو